habeenimo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka warbaahinta ogaal qodobada wararkeena waxaa ka mid noqon doona ansixinta 12 safiir oo cusub oo maanta dood ka dhalatay kadib markii ay golaha wasiirada ku celiyeen wasaaraha dalka. Puntland waxay ku dhawaaqday go'aan la xiriira diidmada lacagta shilinka Soomaaliga xilli ay maalmihii ugu dambeysay ay ka taagneed walaac ku aadan diidmada lacagta shilinka isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga ee deegaanada Somaliland. Xasan Sheekh Maxamuud oo qaab cajiib ah ugu hor istaagay qorshe ay damacsaneed Villa Soomaaliya iyo Maha Salaad oo isbarbardhig ku sameeyay sifooyinka madaxweyne Trump iyo madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. qodobadaas iyo weliba kuwa kale oo xiiso leh ayaan ku soo qaadanayna. sida warbaahinta ogaal miidiyo xaqiijin xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee dalka ayaa qaaday tallaabooyin waxgal kuwaas oo sababay in dowladda Soomaaliya ay ka laabato go'aankii ay ku saxiixi rabtay xaraashka shidaalka ee Soomaaliya. xildhibaanadan aan la hadalnay ayaa noo sheegay madaxweyne Xasan Sheekh uu kala hadlay madaxda shirkadaha isku dayay inay heshiiskaasi galaan iyo sidoo kale dowladaha laga leeyahayba. sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh ayaa la hadlay wadamada daneeya baljira arrimaha Soomaaliya, Banka Adduunka iyo IMF isagoo u sheegay in haddii heshiiskaasi la saxiixo uu dhankooda ka sameyn karo buu yiri maadaama Soomaaliya ay weli ku jirto hanaandeena cafina. wararka ayaana sheegay in ugu dambeyntii uu miro dhalay dadaalkii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee ku diidanaa heshiiska shidaalka Soomaaliya kaasoo halis weyn ku habaal dalka xilligan la joogo isla markaasna shirkadahani ay ka laabteen. heshiiskan ayaana la aaminsan yahay in dowladda ay ka heli lahayd malaayiin lacag oo ay ku geli karto doorashada iyadoo ceelashan shidaalkana ay laga qoday rabay xeebaha magaalooyinka Biyo Brave, waxaana heshiiskaasi uu la damacsanaa in la saxiixo Isniintii la soo dhaafay. dhanka kalena kulanka khamiislaha ee golaha wasiirada Soomaaliya ayaa maanta la horgeeyay liiska 12 safiir si looga ansixiyo golaha, balse dood adag ayaa ka dhalatay xubnihii uu ku qornaa liiskaas oo la sheegay inay u badnaayeen hal beel. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq ayaa golaha horkeenay liis ay ku qornaayeen magacyada 12 kaas xubnood si wasiirada looga ansixiyo safiirnimadooda. xogta ayaa warbaahinta ogaal miidiyaana sheegaysa in xubnaha ku jira golaha wasiirada ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ay si adag uga hor yimaadeen in cod loo qaado xubnahaas, iyagoona ku dooday in magacaabidaasi aan la waafajinin nidaamka awood qaybsiga beelaha ee 4.5. mudan ra'iisul wasaare, waxaan halkan kuugu soo gudbinayaa soo jeedin magacaabis danjiryaal ka howlgali doona dibadda si loo dhammaystiro danaha diblomaasiyadeed ee aanu ku leenahay caalamka. mudan ra'iisul wasaare, waxaan ka codsanayaa in la ansixiyo golaha ayaa lagu yiri qoraalka ay wasaaradda arrimaha dibadda ku dalbanaysay in la ansixiyo xubnaha loo waday danjirnimada. ra-iisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Roble ayaana shir gudoominaya kulankan oo maanta ay go'aamiyeen in wasiirada arrimaha dibadda dib ugu laabto liiska xubnahaasi ay ansixintooda dooda ka dhex abuuratay golaha isla markaasna la soo waafajiyo hanaanka awood qaybsiga bilaha Soomaaliya. taasi ayaana ahayd baljiri in ugu dambeyntii lagu khasbay in wasiirka arrimaha dibadda uu la noqdo liiskaas oo ay ku qornaayeen ilaa 12 safiir oo uu ku jiray xeraalihii hore ee dalka Axmed Cali Daahir. dhanka kalena Puntland ayaa waxa ay ku dhawaaqday gaar ahaan maamulka xarunta gobolka ee Bari ee Boosaaso ayaa waxay maanta lagu qabtay baariir kulan looga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa qaadashada ama isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga oo laga diiday deegaano ka tirsan maamulka Puntland. kulankan ayaa waxaa ku dhex maray mas'uuliyiintan ka tirsan maamulka Puntland, taliska booliska gobolka Bari iyo ganacsatada magaalada Boosaaso, waxaana laga soo saaray go'aano ganacsatada iyo weliba sariflayaasha loogu baaqay inay xoojiyaan soo codsiinta lacagta shilinka Soomaaliga. qaar ka mid ah ganacsatada iyo bulshada Boosaaso oo shirka goobjoog ka ah ayaa dalbaday in si degdeg ah loogu dadaalo in shirkadaha waaweyn ay qayb ka noqdaan kuwa bilaabanaya isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga. waxayna ugu baaqeen madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo xukuumaddiisaba inay gutaan waajibaadkooda in amar lagu bixiyo in la qaato lacagta shilinka Soomaaliga. taliska qaybta booliska gobolka Bari gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa sheegay inay waajib tahay qaadashada lacagta shilinka Soomaaliga, waxa uuna sheegay in dadka diidan ay maxkamadda la horkeeni doono.
magaalooyinka ka tirsan dowlad goboleedka Puntland ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray in la diidayo lacagta shilinka Soomaaliga waxaana fashilmaya maro dhowr ay xukuumadda Puntland ka soo saartay arrintaas iyadoona ugu dambeyntii maanta ay ka jireen maamulka magaalada Boosaaso. xildhibaan Mahad Salaadna waxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa isbarbardhig ku sameeyay madaxweynaha Mareykanka ee xilka ka sii degayay Donald Trump iyo madaxweynaha dalka mudane Cabdullaahi Farmaajo. waxa uu sheegay in farmaajada Trump ay iskaga shabahaan dhanka kursi jacaylka iyo kala talisnimada isla markaasna doqonnimo u arkaan doorasho xor iyo xukun isku dhiiba si nabadoon sida uu isagu hadalka u dhigay. sidoo kalena waxa uu qoraalkiisa ku xusay in labada hogaamiye ay isku haystaan inay ka caqli badan yihiin dadka oo dhan jecel yihiin taageero indha la'aan ah waa sida uu hadalka isaga u dhigay. waxa uuna qoraalkiisa uu soo dhigay barta Facebook uu ku soo bandhigay ilaa qodobo dhowr ah oo ku sheegay wuxuu yiri hal xisbi ay ka wada tirsan yihiin oo doorasho xor iyo xukun oo si nabad ah la isugu dhiibo doqonnimo ay u arkaan buu yiri kursi jacayl iyo kala talisnimana waa u dheertahay buu hadalkiisa ku yiri. madaxweynaha Mareykanka waa dal hay'ado dowladeed oo sal adag u dhisan yihiin laakiin madaxweyne Farmaajo waxa uu ka shaqeynayaa baa jiri nidaam dowladeed curdun ah oo noo dhisan in uu ballaariyo isla markaasna looga baahan yahay sidii uu isugu keeni lahaa bulshada kala tagsan ee Soomaaliyeed iyo siyaasiyiintaba.